wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee xukuumadda komishineerka xakamaynta aidiska hay-adda xakamaynta aidiska agaasimo waaxeedada madax qeybeedada wasaaradaha kala duwan iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle guud ahaan iyo si guud iyo si gaaraba ilaahay baa mahadle waxaan u mahad celinayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somalilan oo maanta inugu soo casuuntay kulankan xoojinta wada shaqaynta hay-adaha dowladda ama wasaaradaha iyo wasaaradda warfaafinta sidoo kale waxaa si gaara ugu mahad celinayaa waaxda wacyigelinta agaasimaheeda oo horkacaya saaxiibkay guri meydhax oo runtii tacab badan iyo dardar badan iyo juhdi badan ay geliyeen ay maanta arkayno midhihii tacabkooda madashana iskugu ka yeedhay waxaasoo saraakiila ay maanta u maamuusan yihiin ay halkan u joogaan sidoo kale waxaynu ka warqabnaa wacyigelin dalkeena ama jamhuuriyadda somalilan maanta waana muhiim wacyigelintu in bulshada iyo dowladdu ay soo dooratay bulshadu ay la socoto hadba waxay u soo dooratay inay qabatay iyo halkuu marayo waxay qabatay iyo inta u harsan xukuumadda ay soo dooratay iyo dowladdaasi waxaad yar moodaa inay gaabs nagu yar tahay wacyigelintu ka xukuumad ahaan anigoo xukuumaddii hore iyo xukuumaddaba ka tirsan laakiin maalimihii koowaad ee la yidhi hadal yar iyo howl badan oo xukuumaddan ahayd udhaahaheedii koowaad oo midiyaha runtii iyo wacyigelinta aada loo koobay oo loo yareeyey oo hawsha la badinayey inuu waktigii badanaa aanay dadkii wax badan oo xukuumaddu qabatay aanay shacabku ogeyn aynu arkayno wasaarado badan ama hay-ado badan oo maanta dadku aanay aada u garanayn waxay qabtaan laakiin wax badan oo qaranka faa'iido u ah qabatay tii baynu u baahan nahay maanta inaynu ka baxno o aynu maanta ka dhigno haddaba waxaynu qabanay aynu sheegno aynu bulshada la wadaagno ninbaa waxaa la yidhi geel laba nin baa nini aada geel u ammaanay suu ammaantii geela ka badbadiyeeyo dee wax kastuu sheegayo ninkii kalaa yaabayo ninkan kale wuxuu isleeyahy ninkani waa nin dee boqolaal geela leh kadino markaasuu ku yihi war niyo geelaa waa imise buu yidhi aada leedahay markaasuu yihi 30 geelaan leeyahay isna boqolaal buu lahaayo markaasuu yihi war anaga geel lehe wax lagu faanaa wax ku faanu waayey buu yidhi markaa xukuumaddu wax badan bay qabatay wax ku faanun baanu yar annagu baa ku faani kari weynay oo sheegi kari weynay laakiinse taa inaynu iska kaashanno oo aynu bulshada u sheegno waxaynu qabanay iyo halkay wax inoo marayaan waan idinku soo dhaweynayaa wasaaradda warfaafinta gaar ahaan waaxda wacyigelinta oo runtii hawshaa wadda ka hay-ad ahaan waan idinla shaqaynayaa si kaliya laaba waan idinla shaqaynaynaa diyaar baanu nahay wada shaqaynta wasaaradda sidoo kale hay-adda dhowrista iyo tayadu dee waxaan arkayay magacyadoo la khaldayo oo waa runo waa wacyigelin la-aantaas iyo taasunbay ka mid tahay laakiinse waxaanu idiin sheegaynaa cunno aanan idiin soo saxiixin oo waddanka soo gasha ma jirto waxaad cunaysaan o dhan annagaa idiin soo ansixina sidoo kale shidaalka imanaya waddankaba annagaa ka mas-uula standardska dalka ama heertayeedyada lagu maamulo hadday cunno tahay iyo qalab iyo wax kastaba annagaa ka mas-uula laakiin insha allah waxaan rajeynaya inay bulshadu si fiican noo baran doonto oo aan waxaanu qabanno dadka la wadaagno waxa naga dhimanna si naloogu sheego oo waxa naga dhimanna aanu gaadhno haddii waa la yidhaahdo guud ahaantiin waan idiin mahad celinayaa kasoo qaybgalayaasha iyo mas-uuliyiinta
oo horkacayo wasaaradda warfaafinta wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta mar labaad iyo mar saddexaad oo idin mahad celinaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu